xilli dhowaan dowladda Falastiin ay safiir cusub u soo magacaawday dowladda Soomaaliya ayaa waxaa maanta uu kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. kulankan oo safiirka Falastiin Rawaad Adil uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka walaalnimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Falastiin. ra'iisul wasaaraha ayaa safiirka Falastiin waxa uu hambaliyay xilka cusub isagoo cadeeyay in Soomaaliya mar walba ay garab taagan tahay shacabka Falastiin gaar ahaan xaqa taariikhiga ay u leeyihiin in xornimo iyo madax bannaani ay helaan. dhinaca kale safiirka Falastiin ee Soomaaliya Rawaad Adil ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya taageerada joogtada ay la garab taagan tahay shacabka Falastiin isagoo xusay in reer Falastiin ay si dhow u og yihiin abaalka walaalnimo ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera shacabka Falastiin iyadoo hore dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay markasta ku taagan tahay go'aanka laba dowladood oo madax bannaan kuwaasi oo ka hirgala bariga dhexe waa Israa'iil iyo waliba Falastiin.